وهي وسارة الدنبيسي مدحوينها أحمد محمد حمود وكل واقعي إن وحاهيد كل وسارة إن آدو بلارن أو يكون حرانته كل بس لو وش قيسيه إن وسارة مركورة وحاي هاين لكن هذا وسارة بوحدة وأنا نقول ما هذا علمي مدحوينها إن وسارة داسي وكردقي maadaama shaqadeedu ay aada u badan tahay oo marka la dhaqaajiyo mashquulkeeda iyo howlaheedu ay ka mashquul badan yihiin wasaarado badan saad arkaysaanba wariyaashiinin oo aanay nasasho lahayn wasaaradan waxay isku jirtaa dalxiisku waa finalkii waa shaqadii la qabanayay marka dambe laakiin marka hore waa dhaqankii iyo وهيتيه يوم حياة قيبتي آثارته أيام حياة أيام متكرسن أما وين مركا آثار يوم يلا لقفانا يلقى يوم يلا هيتاله هلا إما تلحس كنا يمنع مركز مركا تلعب كواد عن قاعدة يحويان بل إن راعي تاريخ دينا تبلغ إيجو راعي وحقومه يسن بل إن أنا ماله آثار قديمة جاهد أن حر هذينه إن أنا محل تذكر صبر لجنه إن أي نقطة سيدا كميلا بدن أو إن الله إن أمرك ورانا أن لوجين لكن كلو قادي إن هولا بدن ما نكشرنا باريس بدن ما نكشرنا إن واحد يندو كيمة بالحار إن جودة بدن يا هولا بدن أيا لقى قبتي إن هذا السؤال شرعي عاوزي إن أي باريس كسر السوق أو تاركولوجيا داما علمي آثار تقديمية إن ربوت كيدنا عندنا الناس والشدة إن نصاب بالدقنا يحيي عن كهرني سدح ميلاد أو المكاسين قاله القلان يميل نوردمان مركز صار ميان وسدح ميلاد بربرة يميل بربرة برا كحتة سيارة ليلا يوم ميلو kale oo bulxaar oo ay mudashan iyo 10 cishaa hawsheeda ay ku jireen markaasi sidoo kale wasiir Khadar Xaaji ayaa ka warramay goobaha qadiimiga ah oo ay ka heleen magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil kuwaas oo ay ku sheegeen inuu ahaa suuqyo qadiimi ah oo waayo hore la isticmaali jiray cilmigan maadaama dad aqoon la yihiin oo cilmigan aqoon u leh waxa la ogaado waxa kamid ah in Berbera kale buurta laga helay ay noqotay marka cilmi ahaan loo daraaseeyo inay ahayd goob ganacsi oo isku iman jireen in caalamka oo dhan isku iman jireen muddo 4 ilaa 5 kun oo sano ka hor ah yaani nabi Ciise ay 2 kun sano alayhi salaam ka horeysay xilliga meeshaas